walaalayaal, my brothers and sisters here in Washington D.C. waxaad ogtihiin 34 sannadood halkan ka soo bilownay intaan soo soconnay joornaygu siduu u dheeraa safarku siduu u dheeraa dhibaatooyin badanoo soo marnay carqalad badanoo soo hor istaagay waxaan muujinnay oon adduunyada u muujinnay inkastoo in badan ay isku dayeen inaan niyad jabno inaan dhexdeenna burburno inaan inagu kala tagno waxaan muujinnay sannad kasta sannadka ka dambeeya inaan strong siinahay ka sii awood badannahay niyaddeennu ka sii fiicannahay wadajirkeennu ka sii fiican yahay aanaan weligeedna ka tanaasulayn in Somaliland ay hesho ixtiraaf ilaa ay heshana waan wadaynaa waan sii xoojinaynaa waxaase muhiima oon aad ugu celcelinaya maanta oo aan doonayaa in qalbigiinna iyo quluubtiinna gelisaan heestaa calanka mar kasta oon saarno aniga kelmad baa aad ii taabata mar walba heestaas waxay ku soo ururtaa midnimo iyo walaalnimo waxaa laynooga baahanya keliya inaan midnimo iyo walaalnimo aan muujinno waxaan idiin hubaa oo aan shuur in badanna ay igu raaci kartaa marka dadka qulubtooda iyo niyaddooda iyo xagga ay u socdaan ay isku duuban tahay wax alla wax hor istaagaya ma jiro 34 sano in walaal soo soconnay maanta waxaan joognaa runtii meel aan isleenahay waqtigii Somaliland la ixtiraafayay waa la gaadhay may maqlaysaan waqtigii Somaliland la ixtiraafayay waa la gaadhay kaliya waxaynu u baahannahay inaan gamcaha isqabsanno inaan isku duubnaanno inaan si wada jir ah uga wada hawlgalno sidii aan ixtiraafkaa u heli lahayn qalbigeenna iyo quluubteennana aan u midayn lahayn waxaan ogahay in mararka qaarkood dimuqraadiyadda aan muddada soo wadnay waxoogaa aynaan aad ugu yar bisbislaanin oo mararka qaarkood ay nagu yar keento waxoogaa qoqob yar iyo kala qaybsanaan yar war waxaan u baahannahay in halkaa ka gudubno taasi waa kursi la kala riixanayo laba xisbiyo mid walba aniga ku fiican iyo aniga ku fiican leeyahay laakiin muhiimaddu horta inaan ogaano inaan meel wada soconno inaan dhammaanteen inaan meel wada soconno ogaano arrintaa aynu ka baxno siyaasadduna way isbeddeshaa kuwa maanta jooga ma kuwa kalaa berri imanaya kuwa kalaa ka sii dambayn doona laakiin hal mabda' oo ina midayaynaan ka tegin halkeenna mabda' waxa weeyaan inaan Somaliland tahay dad walaala'a dad isku duuban dad qalbi iyo quluubtoodu midaysan yihiin hal waxna ka midaysan taas oo ah in Somaliland ixtiraafkeedu yimaado ixtiraafka Somaliland dawlad iyo madaxweyne iyo wasiir iyo ambaasador kaliya kama mas'uula dhammaanteen baa ka wada mas'uula gaar ahaan dadkeenna qurba joogga ah Somaliland waxa tihiin dadkii Somaliland ay ka dhiman weyday 34 sannadood haddii aanay jirin qurba joogta Somaliland dhibaatooyin badan baa soo wajihi lahaa meesha qura ay ka dhiman weyday idinku ahaa waxaad u shaqaynayseen iyo xooggiinna iyo xoolihiinnaba waxa gelinayseen dalkeenna waxa taageerayseen dadkeenna waxa xoojinayseen waxa dhisayseen iskuullada waxa dhisayseen ceelasha waxa dhisayseen MCH-yada dhakhtarrada meesha ay ka dhiman weyday caawimo waaweyn oo adduunyadii noo geysatay ma jirto waa ogtihiin cidda qura ee dhabarka u ridatay xoogga weyn Somaliland ay ka dhiman weyday baa tihiin maantana waxaan doonayaa dadaalkiinnii intaa soo socday 34 sannadood ee aan ka soo shaqaynaynay Somaliland dhismaheeda iyo taageeriddeeda inaynu kaga dhabayno oo aan maanta si midaysan isku wada garab istaagno dhammaantiin sidii aan safarkii hore idiin sheegay ambaasadooraad wada tihiin waxaad tihiin wasiirkii arrimaha dibaddaad wada tihiin waa inaynu ka wada shaqayno si aan uga midho dhalin lahayn 34 sannadood waa muddo dheer walaalayaal 34 sannadood dadkuna waa inay gool samaystaan anu waxaan isaadaa sanadkaa maanta waa sanadkii ixtiraafka goolkeennuna waa inuu kaa ahaado waa inan ka midaysnaado waa dadaalayaan ambaasadoorka iyo dadka la shaqeeya halkan aad bay u dadaalayaan runtii Somaliland saaxiibo badan bay u sameeyeen dadaal badan bay ku jiraan albaab walba way garaacayaan laakiin waxa loo baahan yahay in la isbarbar taago dawladda la garab istaago qof kasta oo hawl qabanaya oo gudanaya waajibaadkii qaranka oo dalkii dadka u shaqeynayaba in la isgarab taago ayaa muhiim waxaan idin bishaaraynayaa
aniga diriimna hayga ahaatee horena waan u sheegaa intii aan joogin waan ku celceliyey sanadkan maanta inuu ixtiraafku inala dhaafayo ilama ah ilaahay amarkiina lama dhaafayo waxaan doonayaa goolkeennu kaa inuu ahaado inaan ka wada shaqayno inaan isgarab taagno waayo ixtiraaf la'aantu runtii culaysyada badan ee maanta ayna haysta ixtiraaf la'aanta inoogu wacan waddankani waa wada resources baa buuxa oo antaab ah shiidaal baan leenahay macdan baan leenahay wax aynaan lahayn oo dhulkeenna aanu lahayn resources ma jiraan laakiin waxa hor taagan in shirkado waaweyn yimaadaan oo ay investment samaystaan oo dadkeennu shaqo helo oo horumar sameeyo waxa hor istaagani waa ixtiraafka haddaan helno waxaan aaminsanahay waxaynu nahay dal yar oo dhulkiisu ka ballaaran yahay dhulkaan haysanay iyo dadkeennu shaqayskuma leh dhulkeenna 100 milyan oo qof baa ku noolaan kara innagana waxaa la yidhahdaa 4 milyan qof baa ku nool waa inaga badan yahay resourceska yaalaana wuu inaga badan yahay waxaa dadka iyo siyaasaddana yar kala duwanaya waa dhaqaale yaran waddanka markoona dhaqaale badan jirin resourceska yar waa laysku wada jiitaa waa layskugu wada cadhoodaa laakiin hadduu dhaqaalaan helno oo shirkado yimaadaan oo dadku kala shaqo tagaan dhibtan iyo waxaniba way naga hadhi lahaayeen markaa walaalayaal wax badan oo duruufuhu inagu keenaan baa jirta oo innaga dhexdeenna dee duruufahaasi jiidanaya ay nagu keenaan waxaasoo dhan waxay iskugu soo ururayaan dhaqaale darrada iyo shaqala'aanta dhulkeenna ka jirta runtii waxa weeyaan markaad eegto unemployment rateku innaga ilaa 7% weeyaan unemployment rateku waddanka 7% unemployment ratekiisu tahay ee haddana nabadgelyadiisa iyo stabilitygiisa sidaa u ilaalinaya waa wax mucjiso ah runtii innagoo taa ka hortegayna walaalayaal waxa weeyaan sida qura ee aan duruuftaa kaga bixi karno ee waddankeenna iyo resourceskeenna ula soo bixi lahayn ee shirkada u iman lahaayeen ee ummaddu u kala shaqo tegi lahayd ee dadkan isku imanaya ee maqaxay iskugu imanaya waxay shaqala'aantii waxay ka sheekeeyaan markay garan waayeen qabiil inay ka sheekeeyaan iyo inay iyagu diidaan duruufaha dhaqaalaha ayaa badaya inaan taa ka baxnayn doonaynaa dhexda aan u xidhanno sanadkaa maanta ah inoogama dambayso yar iyo weyn dhallinyaro odayaal gabdho dhammaanteen waa inaan dhexda u xidhanno sidii somalilan ay ixtiraaf u heli lahayd dhammaantiinna mas-uuliyad baa saaran qof kastoo inaga midana mas-uuliyad baa saaran waa diyaar ma u nahay yar iyo weynba maanta inaan isgarab taagno oon isku duubnaanno oo aan ka shaqayno sidii aan ixtiraaf u heli lahayn taasaan inagu ogahay inoogama dambayso ilaahayna uu inagu garab gelayaa 34 sano oo aan intaa soo adkaysannay samirkuna waa wax fiican waa soo samirnay waan kala tegi weynay waa strong baan sii noqonnay waan sii xoojinnay midnimadgeenna iyo nabadgelyadeenna way dhammaatay maanta ixtiraaf baan diyaar u nahay qalbigiinnana geliya quluubtiinnana isku keena maxaa nigu ogahay midnimo iyo walaalnimo aad baan idiin salaamaya dhammaantiinba